أشهى الثمر فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. هذه محاضرتي التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر. هذه محاضرتي التي منها الضياء قد انتشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، walaalayaal kusoo dhawaada. waxaan dib u bilaabanayna insha allahu tacaala nadwadeennii sideedaad ee loo qaban jiray dumarka muslimaadka ah ee soomaaliyeed ee degan magaalada Odense iyo nawaaxigeeda. nadwada waxaan ku jirnaa maalintii labaad iyo muxaadaradii koowaad. muxaadarada magaceedu waxa weeye xanta iyo been abuuradka. waxaan inoo geli doonaa insha allahu tacaala sheekh cusmaan cali faarax. falyatafadal shaykhuna mashkuuran ajran. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال موضوع أما أرنتا ورمانت إن لقاها النص هذا الله حصي وحنتا يبن أموركا. موضوع لحريرة حنتا سيدة تقانين waxaa lagu sameeyaa oo qofku uu dadka kale ku xantaa inta badan carabka ayaa wuxuu yahay aaladda ama qalabka uu qofku u isticmaalo inuu dadka kala xanto sida badan, laakiin keligiis ma aha. laakiin carabku marka wuxuu ku jiraa nicmooyinka waaweyn oo ilaahay qofka bani aadamka u siiyey. markaad carabka fiirido muuqaalkiisu waa yaryahay, laakiin nafcigiisa iyo waxgalmaadkiisa iyo waxtarmadiisu aada ayay u fara badan tahay. isaga ayaa tawxiidka lagu sameeyaa, isagaa salaadii qur-aankii iyo khayrkii iyo wardigii iyo wax walba lagu akriya oo wanaaga. isagaa dadka macruufka lagu faraa, isagaa dadka xumaanta looga reebaa. wax kasta oo wanaaga inta marar badan waxaa lagu qabtaa carabka. uu ka shaqo badan yahay xubnaha kale qayb badan oo kamid ah. isla markaasna waxaa badan khatarta uu leeyahay oo wuu ka khatarsan yahay kana dhib badan yahay shido jirka xubnihiisa intooda kale. carabkaas yar maadaama khatartiisu fara badan tahay oo isaga lagu gaaloobi karo, beentii isaga lagu sheego, xantii isaga lagu sheego, isku dirka isaga lagu sheego, nifaaq munaafiqnimada, dadka islaameed xuquuqdooda in loo dhaco, wax walba oo khatar ah oo dadkii lagu dhigo iyo dunyadii, isaga ayaa lagu samey karaa carabku oo ah aaladda ugu fudud oo dadku ay in badan adeegsadaan. marka carabku waa shay ay mudan in qofka muslimka uusan fududaysan oo uu ku baraarugo khatarta uu keeni karo. markaad carabku fiirido uu yaryahay, laakiin dadka qaar waxay tusaale uga soo qaataan waa sida kaneecada oo kale. bahalka kaneecada la yiraa oo yar, muuqaalkiisu waa yaryahay, qaniiyada uu qofka qaniinana way yar tahay, laakiin hadhoweyto raadka ay ka tegaydo iyo cudurka ay dhalinaydo aada ayuu u fara badan yahay. marka waa wax mudan inaan la fududaysan ee qof walbaaba aada uga digtoonaado. qofku marka uu xanta sheegayo waxay iyadoo khatar kale haddana sii ah. waa wax xantu carabka u fudud oon carabkii cuslaynin oon dhibaato ku hayn. in qofku qof kale uu xanto maantana wax ka sheego wax carabkii cuslaynaya maahan. shaydaankuna qalbiga ayuu qofka ugu macaaneynaa oo wax maarata fiican oo wanaagsan uga dhigaa.
dabeecadda bani aadamkuna in dadka kale la dilo oo dadka kale la dulmiyo wax aada u dhibaayo maahan haddii aysan diinu jirin. carabku khatartiisu marka aada u fara badan tahay ilaa la gaarsiiyey oo nabigu gaarsiiyey waxyaabaha dadka ay ku naar tagaan oo naarta geeyo waxa ugu khatarsan oo ugu badan in uu carabku uu ka mid yahay. sidaas awgeed dadkii hore qayb ka mid ah ayaa waxay ku baraarugeen khatarta uu carabkoodu keeni karo iyo dhibaatada uu sababi karo. markaase waxay yidhaahdeen carabkaygu waa bahal, haddii aan sii daayo aniga u cuna. carabkii waxay kasoo qaadeen sida libaax oo kale, haddaad isku soo fasaxdo adiga ku cunay. inuu marka libaax oo kale yahay carabku oo qofka shaksiyadiisa iyo diintiisa iyo sumcadiisa iyo dadka kale shaksiyadoodii inuu cuni karo oo burburi karo insha allah dib ayaan ka ogaan doonaa. haddaan marka wax yar ka taataabano xantu luqad ahaan waxay ka timid erey ka hadlaya wax alla wixii qofka ka maqan oo uusan arki karin. ereygan maxaa luqad ahaan marka af carabiga ay alghiiba ay af carabiga u yaqaaneen, maxaa magacaas loogu bixiyay? waxaa loogu bixiyay yidhahdeen luqad ahaan qofka la xamanayo ma joogo marka la cunayo oo isaga la dilayo oo dadku ay sharaftiisii iyo karaamadiisii iyo dadnimadiisii ay dukun daakun ka dhigayaan oo ay burburinayaan, isagu ma joogo, uu maqan yahay. marka erey maqnaantaas xiriir lale ayaa loo bixiyey. laakiin diin ahaan waxaa laga wadaa xanta marka la yiraa waxaa laga wadaa qof maqan inaad wax u dhibsanayo oo uusan jeclayn in laga sheego inaad ka sheegto. qofkii waa maqan yahay, waxa aad ka sheegayna waa wax uu dhibsanayo oo uusan jeclayn. hadduu qofku joogo xan maaha, waa dulmi toos ah oo bareer ah. badanaana qofkii asaga iska kaa dhicina, laakiin tan way ka khatarsan tahay. qofku markuusan joogin isma difaaci karo. sidaas awgeed waxay yidhahdeen hal qof oo nool intaasoo kun oo meyd waa ka adag yahay. sababto meyd iskama kaa dhici karo. qofka hadduu maqan yahay waa qof meyd oo kale, iskama kaa dhici karo. sidaad adigu rabto ayaad u qalan kartaa. sidaas awgeed ayaa nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu asxaabta ku yiri sida ku xusan xadiis uu soo wariyey abu hurayra oo ku qoran saxiix muslimka iyo tirmidiga. wuxuu ku yiri nabigu atadruuna ma alghiiba? dadkii weydiiyey asxaabta wuxuu yidhi ma taqaanin waxaa la yidhaha xan? markaasay waxay yidhaahdeen allahu wa rasuuluhu aclam, waxaa yaqaan ilaahay iyo rasuulkiisa. maxay sidaas u leeyihiin allah wa rasuuluhu aclam? nabiga diin ayaa loo soo dhiibay, waxa uu ilaahay ka keenay isagaa yaqaan. marar badanna waxaa dhacday inta nabigu yidhi waxaas ma taqaaniin oo dadku ay sidii ay isla yaqaaneen oo dhaqankooda ahayd ku jawaabeen, ayuu nabigu yidhi maaha sidaas, waa sidaas. marka edad iyo maamuus iyo xushmayn iyo xurmayn iyo in booska iyagu leeyihiin aysan dhaafin awgeed ayaa rasuulku markuu wax weydiiyo mar badan waxaad arkeen iyagoo asxaabtu leh allahu warasuuluhu aclam, ilahay rasuulkiisa yaqaan. markaasuu wuxuu yihi nabigu xan waxaa la yihaha dikruka akhaaka bima yakrah qaala ara-ayta in kana fiihi ma aqul qaala in kana fiihi ma taqul faqad iqtabtah wain lam yakun fiihi ma taqulu faqad bahadtah. nabigu wuxuu yihi xan waxaa la yihaha qofka walaalkaa ah inaad ka sheegto wax uu dhibsanayo oo uusan rabin in laga sheego. qolaa soo booday waxay yidhaahdeen yaa rasuulallah ka waran waxa ay sheegay hadday run yihiin. ninkaan lugayaa la yihaa, camayaa la yihaa, daamayaa la yihaa, waa fool xun yahay, waa saan waa saan waa saan, haddaan ka sheego intii u ahay maxay hadda dhibe? markaasuu wuxuu yihi nabigu in kaana fiihi maa taqulu faqad irtabta, haddii waxa aad ka sheegay ay run yihiin waad xamatay oo waa xantii dhan oo la sheegaya sidaas aya. haddii waxa aad ka sheegay uusan ceebtaas lahaynna way kasii fool xun tahay oo way kasii xag jirtaa
oo xan kaliya maahan ee waa ceeb qofkii lagu kooleynayo oo lagu tiimbaraynayo oo lagu khasbayo oo lagu ablikaarinayo ee uusan bashaqo ku lahayn. marka dadka bani aadamka markay rabaan inay marka qofkii xantaan oo qof maqan ceebihiisii iyo iimihiisii iyo dhaliishiisii la sheego siyaabo kala duwana dadku u sheegaan. laakiin intaan qaababka la gaarin waxaa dadku isweydiin karaan qofka haddaad isaga wax ka sheega miyaa keli ah xan, mise haddaan waxyaabaha xataa isaga xiriirka lala oo dhan sheego xanta way soo gelay. culimmadu waxay yidhaahdeen qofka haddaad isaga jirkiisa ama aqoontiisa ama dadnimadiisa ama wax garashadiisa ama wax qofka xiriir lale aada wax ka sheegto oo qofka nusqaan iyo ceeb ku ah waxan dabeecaddii ha noqoto, abuuristiisa ha noqoto, maalka u haysta ha noqoto, ilmihiisii haddaad wax ka sheegto, haddaad xaaskiisii ama gabadha ninkeedii aada wax ka sheegto, iyo wax alle wixii qofka xiriir lale oo ceebtu ay si toos u gaari karto, markaas waxay noqonaya xan. waxaa marka isku mid ah qaabka aada wax uga sheegay oo aada ku xamane oo aada ceebtiisa iyo dhalishiisa iyo xumaantiisa kusoo bandhigay inuu noqdo carabka iyo inuu noqdo xubin kale oo xubnaha kamid a. carabka marka wuu fudud yahay, qof walbaana wuu yaqaan sida dadka wax looga sheego, laakiin xubnaha kalena waa la isticmaalaa oo xanta way noqotaa. kaba soo qaad qofka qaar wuxuu qof kale wuxuu ga sheegi karaa tilmaan, inuu xoogaa tilmaamo qofka kale ceebtiisii, ama kaba soo qaad wuxuu u soconaa sida qofka duu jiis ahay oo kale sida jiiska u socona, hadduu ilaa inuu isku qabana hadba sidii ceebtiisi dadku ku garan karaan ayuu ku garansiina. hadduu rabo qoraal uu samayn karaa, qaab alla qaabkii uu rabo ku caddeeyo, si kasta oo sheegi karta qofku inuu qofka kale ceebtiisii iyo intiisii iyo dhalishiisa soo bandhigi karo, waa xaraam. culimmadu marka waxay yidhaahdeen arrintaas qofku inuu ku kaco waa arrin xaaraan ah. culimmada islaamka o dhanna ay isku waafaqsan yihiin oo aan la arkin cid tiri in dadka islaameed la cuno oo la qasho oo hilibkooda lagu dhadhansado inay xalaal tahay cid tiri ma jirto, waa xaraan. culimmada qaar weliba waxay gaarsiiyeen xaaraanta iyada darajooyin ah oo kala sarsareyda. qaarkood waxay gaarsiiyeen inay kamid tahay dembiyada waaweyn oo la galo. waxaan kusoo koobaynaa marka waxyaabaha caddeynta u ah arrintu inay xaaraan tahay hal aayad iyo hal xadiid oo ku filan in ay tusaaleeyaan oo ay caddeeyaan oo ay sharxaan oo ay bayaamiyaan arrintan khatarta ay leedahay iyo falxumadeeda. hal aayad nabigu ilaahay wuxuu yihi qur-aankiisa ku yihi walaa yaqtab bacdukum bacdan an yuxibu axadukum an yaأkula laxma akhiihi mayta fakarihtumuuhu waataquu llaha ina allaha tawaabu raxiim. ilaahay wuxuu leeyahay war ha isxamanina, si marka uu dadka markii laga reebay inay isxantaan oo loo sheegay inaan la ogoleen, ayaa arrin dadka tusi karta oo ku baraarujin karta arrintan falxumadeeda ayuu ilaahay tusaale camal wuxuu uga dhigay oo dadka ku baraarujiyay. wuxuu yihi qof idinka miduhu ma jecel yahay walaalkiis hilibkiisa inuu cuno isagoo dhintay. ereyada la isticmaalo waxay tahay ma jecel yahay qofkiin inuu cuno, waxaa laga hadlaayo qofkiin ma cuni lahay walaalkiisoo dhintay ma laga hadlayo, ma jecel yahay alayidhi inuu cunoba. cunitaankii waxaa kasii faraxun in uba rababa, oo waxaa la diidaa qofkii isagoo raba oo jecel oo firfircoon usoo kala iladay inuu qofka kala cuno ayuu xamaa. marka waa ceeb iyo falxumo dheeraad ah qofku inuu xataa qaab jeclaan ay ku jirto iyo rabitaan ah
inuu qofkii kale wuxuuga sheegayo. hilibka la cunayo nabigu ilaahay u isticmaalay inuu qofkaasu yahay tusaale ahaan walaalkaa, inaad walaalkaa qalato iyadaa dad qalatinima oo aan marnaba naftu qaada karin, isagoo dhintay haddana inaad sii cunto, inaad kusii faraxsan tahay muuqaalka sidaas marka aada leedahay qofka ku arkaaho oo dhiigga kaa da-ayo oo miciyuhu dhibcuhu dis kale yihiin oo qofkii iska cunayo. kasoo qaad qofkii oo walaalkiisoo dhintay halkaan inta dhigtay ama walaashiisoo dhimatay halkaan inta dhigtay oo hilib weyn soo goostay oo fargeeto iyo mindi iyo qaado soo qaatay iyo miiska saartay oo tartiib cunaya haddaad aragto, qofkaasu qofayo ama qof maaragtay miyirka qaba ama qof maaragtay loo dhawaan karo, waa qof dadqalato ah oo khatar ah oo aan loo soo dhawaan, oo ilmahaaga iyo naftaada inaad ka ilaashato mudan, sababto waa dadqaad. marka qofka noocaasa ma jecel yahay inuu walaalkiis sidaas oo kale. marka ilaahay wuxuu sheegay in arrintaas ay tahay arrin dadku dhibsanaya oo aysan jeclayn oo suurtagal ahayn. sida taas aysan suurtagal u ahayn ayay aayaddu waxay tilmaameen inaysan suurtagal idinkaga noqon qofkiioo maqan in ceebtiisii iyo dhaliishiisii iyo iintiisii la faago oo qofkii la timbarayo oo la ceebeeyo oo ceebtiisii iyo foolxumadiisi dadka lagu faafiyo, inaysan taasu suurtagal. marka sida nafta iyo qofka dareenkiisa uu u diidayo inuu dadka qof dhintay oo la dhashay u cuno oo u jeclaado, sida naftu u diidaydo sidoo kalena ha u diido naftu in ay qofkiioo maqan wax ka sheegto. waxaad garan kartiin dadku hilbaha tusaale ahaan dadka aan muslimiinta ah iyo aysan qalin iyo xoogaa dadku aada isaga ilaaliyaan oo waxay leeyihiin waa laga shakisan yahay oo supermarketyada waaweyn iyo hilibka iyo kama gataan, waxay raadiyaan meel xalaal hilib lagu gado. qofkii maanta oo dhan laga yaabo inuu hilib xalaal raadinayay oo dalka magaalada markuu ka cusbay wiig dhan aan hilib afkaas saarin oo hilib xalaal raadinayay, wiiggaas uu hilib xalaalka raadinayo hilib xaaraanahoo kale cuni jira oo ka khatarsan midkaan, oo ah dadkii islaameed inuu dhigoodii iyo hilibkoodii u cunayo. waxaa intaas raacsan hal xadiis oo sidoo kale isla tusinaya arrintan falxumadeeda. nabiga ayaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xajkii ugu dambeeyey oo xajatulwadaac markuu dhammaaday oo maalmihii ugu dambeeyey la joogo maalintii tobnaad ayuu nabigu wuxuu yidhi atadruuna aya yawmin haada, ma taqaanin maalintaanu maalinta ay tahay. dadkii soo boodeen asxaabtii allahu warasuuluhu aclam, waxaan ka cabsanay yidhaahdeen oon u malaynay inuu waxtaa nabigu maalintan magac kale ku sheegi doono. markaasuu yidhi ma waysan ahayn yowmu naxr, maalinta oo xoolaha hadyiga la keenay iyo maalintii la qalayay soo maaha. markaasaan ku niri yidhaahdeen ha, rasuulka ilaahay waa sidaas. markaasuu haddana wuxuu yidhi fa ayu shahrin haada, oo bishaan aan ku jirnaa waa bilma. waxaan ku niri yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisa yaqaan. markaasuu yidhi alaysa bidilxija, bishii dilxija la yihaa oo miyaysan ahayn bishaan? waxaan ku niri yidhaahdeen haa, waa sidaas rasuulka ilaahay. markaasuu yidhi fa ayu baladin hada, meeshaan magaaladan aan joognay dhulkaan aan joognaa waa halkee? markaasuu ku yidhahdeen allahu rasuulu aclam. markaasuu yidhi meeshu ma waysan dhulkii xaramkii iyo maka iyo dhulkaas ma waysan ahayn? markaasaa la yidhi haa, waa sidaas rasuulka ilaahay. intaas markuu ka hubsaday oo ay fahmeen, maskaxdooda ay furantay oo ay dadiis yidhaahdeen talo rasuulku muxuu sheegi doonaa, ayuu wuxuu yidhi ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada falyuballig ashaahid algaa'ib. wuxuu rasuulku marka ku sawirtiyey ummadiisa
erayadaas aan sheegnay oo macnahoodu yahay dhiiggiina iyo xoolihiina iyo qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo dadnimadiisa in wax loo dhibo oo wax la gaarsiiyo waa xaraam, sida ay xaraam u tahay maalintaas aan joogno oo yowmu naxriga la yiraa in iyo dhulkaas aan joogno oo xaramka ah iyo bishaas aan ku jirno oo bilihii xajka ah in la sameeyo wax xun oo falxumo ah sida aan loo ogolayn oo kale ayaan tanna loo ogolayn in qofku uu dadka kale wax u dhigo. marka waagaas carabtu way yiqiineen in xaramka dhulkaas maka iyo inta u dhow iyo bilahaas lagu jiro iyo bilo xurmale oo aan far la taagi karin oo qofku dhaqdhaqaaqi karin aan xumaan la samayn karin inay yihiin, taas way fahamsanaayeen oo awali hore u yiqiineen. nabigu marka wuxuu iskugu kabay oo isugu dhajiyey sida tan ay xaraan aada u fahamsantihiin ayuu ahayd ayaa kuwaanuna sidoo kale ay xaraan u yihiin, oo uu isku xiray oo qofka dhiiggiisii iyo maalkiisii iyo acraabta in qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa dadnimadiisii in wax loo dhibo iyaduna waa xaraan. mararka qaarkood waxaa dhici karta qofka dhiiggiisa qofku inuu iska ilaaliyo oo inuu qof dilo uusan rabin, xoolihiisana halkaas hadduu lacag fara badan dhigto uusan ka taabanayn, laakiin saddexdooda midda ugu jilicsan oo qofku iska dhaafi karin waa qofka dadnimadiisii in la burburiyo. waxaa laga yaabaa qofku marka inuu isweydiiyo maxay tahay sababta xaaraanta looga dhigay xanta. xantu waxay kamid tahay cudurrada oo bulshooyinka ku dhaca oo khatarta ah, isla markaasna aan ahayn cudur qof iyo koox gaara iyo magaalo gaar ah jooga, ee ah cudur baahsan oo meel walba jooga, oo ay adag tahay inuu qofku ka badbaado. dad dhifa iskontaroola oo iska adag oo dhifa oo maaragtay aakhiradoodii maaragtay aada u ilaashanay maahan, waa arrin iska ilaalinteedu ay aada u adag tahay. marka sababta loo xarimo waxay tahay qofka jirkiisa haddii la toogto oo kow looga siiyo dhinto, qof walba wuu ogyahay inay xaaraanta inay farxumo tahay, qofku waa ogyahay. laakiin qofka bani aadamkaahu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood. qaybna waa jirka loo jeedo oo socda oo nool oo dhaqdhaqaaqaya, qaybna waa muuqaal iyo humaag kaas ka dambeyda laakiin ka qiimo badan jirka, sida in jirka si toosa loo dilo aysan u banaaneen oo ay xaaraanta u tahay oo laba taabtaanka iyo looba dhawaandaanka ay u tahay, ayaa sidoo kale waxaa xaaraan ah humaagta dambe iyo muuqaalka dambe oo jirka ka dambeeya in wax loo dhigo. muxuu yahay muuqaalka dambe? qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo dadnimadiisu iyadaa ka qiimo badan jirka. waxaa laga yaabaa qof lug iyo gacan ay ka go-an yihiin bulshada dhexdeeda in uu ka leeyahay qiimo aad u sarreeya oo uu ka qurxoon yahay, kana fiican yahay, lagana jecel yahay dadka lugaha badan iyo gacmaha badan leh. marka meesha lagu kala tagaaho maahan inay faro kaa go-an tahay, inay faro kuu dheer tahay iyo tan jirku wax weyn maahan. waxaa kasii khatarsan midda dambe oo ah qofka dadnimadiisa. marka in qofka lafahantiisa la toogto iyo qofka dadnimadiisa in la toogto waa isku si ayay xaraan u yihiin. tusaale ahaan gabar dhalinyaro ah oo mustaqbal doon ah oo magaaladan joogtay, haddaad disho inay xaraan tahay dadku isweydiin male. laakiin waxaa laga yaabaa in ay fududaato in mustaqbalkeedii la burburiyo, la yidhaah ma maqasheen gabadhiina hebelheed waxa ku dhacay oo laga sheegay, la tiriyo marka meel khatar sidaasa iyo arrin sidaasa iyo mid sidaana iyo mid sidaana, ceebo badan oo hal xaba haddii la sheego inaadan mar damba fiirin ay kalifi karto. laga sheego taleefonka la isku diro, dadku isku sheegaan garoortaadi waa meeqa ama
kami qof maaragtay jo u dhahan la waayo qofkan waa la dilay waa dhimatay marka in qofka jir ahaan loo dilo iyo in muuqaal ahaan iyo macno ahaan iyo muuna ahaan loo burburiyo waa isku mid marka waad aragteen qofka qur-aanku wuxuu leeyahay qof muslina si ula kac u dila inuu naarta galay isagoo ku waaray fasiraadeeda markaa si fiican loo sharaxa haddii marka aad qofka disho dadnimadiisii iyo sharaftiisii iyo karaamadiisii iyo meeshii uu macnaha iyo muunada ka lahay haddaad burburido sidii oo kale waxyaabaha lagu naarta tago waxaa dhici kara in dadku aysan mararka qaar ku baraarugin maxaa kalifa xanta waxyaabo badan oo waxaa jira qofka ku qasba oo ku kiciya in uu dadka xanto midda koowaad waxay tahay tusaale ahaan qofkii asxaabtiisii ama dadkii ay saaxiibada ahaayeen ama ay sheeka wadaagta yihiin ama ay isla shaqeeyaan oo dana badan uga xiran yihiin ama asaga u taliyey oo shirkadda qofka xukuma iyo dadkii madaxdiisa ahaa ayaa dad xamanayaan wayna ku dhadhansanayaan isaguna meeshuu joogaa hoos waa ka necabyahay waa waxun laakiin haddana wuxuu isleeyahay haddaad dadkii iska takoorto oo aad tiraa anugu dadka wax ka xamamaa oo aada gaar noqoto dadkii waa ku nacayaan gaaraan lagu soocaa qofkan qof isla weyn oo kibriy oo gardaran arta ama aan dadka qiimeyneyn xooga ama si xun lagu arkaa isleeyahay waxaa laga yaabaa hoos inuu ka necab yahay laakiin isagoo ku raacayo dadkaas kale oo ay dantu kala dhexaydo isagoo arrintan ku raacay ayuu wax ka qoslaa oo hadba marmarka qaarkood marka cabaar qofkii la dilo asna markiis inta gacanta taagto hal ul asna u ridaa uu leeyahay anigu xataa arrintaas goobjoogan ayaan ka ahay markii caabtaas ay qofkaas ku dhacay waxaa laga yaabaa inuusan si hoose keligiis la tashado inuusan rabin laakiin wuxuu diiday inuu dadka iska takooro oo dadku hadhowti yidhahdeen ma heblaayo lama hadli karo ama hebel lama hadli karo sababtoo markii wax la soo qaado aniga haygada iyo way isu soo taagaan marka si aan dadka uusan uga go-in ayuu wuxuu isleeyahay dadkaada ha ka harin mahmaah qaldan ujeedo fiican midha markii hore laga lahay oo sidaan camal aha jirto soomaalidu yidhahdeen kabtaada iyo tonkaaga waa lagu dhex jiraa macnaa qofku wuxuu isleeyahay dadkaaga isaga dhex jir oo dadka haka bixin laakiin haka bixintii ayuu si toosa naarta ugu gala waxaa lamid ah qofka oo xaasid ah cudurka xasadka la yidhaha waa cudur u baahan keligiis in muxaadarooyin laga dhigo dadkuna laga yaaba inaysan ku baraarugin xasadka marka macna ahaan waxaa laga wadaa marka lasoo koobo qof kale nicmo iyo wanaag uu haysto oo qofkan uu jeclaan lahay in laga xayoobiyo uusan marnaba dhegeysan karin qofkaas lacag u haystaa magac iyo sharaf u haystaa ilmo fiican u haystaa gabadhii nin fiicana qaba ninkii gabar fiican u qabaa qofkii sharaf iyo karaamo aan meelaha u taal qofkan kale ma dhegeysan karo wuxuu jeclaan lahay in inta loo tago laga xayoobiyo marka cudurkaas markuu hayo isma hay karo markuu maqlo qof hebel wanaag iyo wuxuu leeyahay cudurka ku kaca isagoon ogeyn inta jarciyo oo qofkii dil kula dhaqaaqa marka qofka marka cudurkaasu hayo wuxuu ku kalifaa in uu ka aarguto oo uu disho qofka uusan rabin inay nicmada ay hesho waxaa ka mid ah in qofku uu jago iyo adduunye jacayl ama maal ama magac uu rabo qofkan wuxuu rabaa inuu magac yeesho ayuu wuxuu aaminsan yahay inay ka hor taagan tahay hebel iyo heblaayo oo magac leh si isagu marka magac u yeesho waa in kuwii magaca iyo
iyo dadku u hayeen sharafta iyo karaamada waa inuu horta kuwaas ka xayoobiyo oo kuwaas la arki waayo si asaga keligiis loo arko. marka taas waxay ku kalifi kartaa in uu waxanto. waxaa la mid ah qofkii waa ganacsade, dukaan uu leeyahay, maqaayad uu leeyahay, wuxuu rabi lahay maqaayadiisa ama dukaankiisu midka kali ah oo dadku ay kusoo xirtaan oo ay kusoo hirtaan oo dadku wax ka gataan oo la yaqaano inuu u noqdo. marka dukaamadii kale iyo marka tiisu ay u shaqeydo waa inuu dukaamadii kale iyo meesha horta ka saaro daaqada oo yiraa dukaan hebel alaab dhacduu gada ayaan hore waa naseexay waa u sheegay maarta dadka alaabta dhacdaha ka gada alaab aan quality lahayn oo meelaha raqiisa laga soo gaduu gadaa. qofka dukaanka gada ama iskalo dabeecadiisu aad ay xun tahay, dadka kaliyentiga waa wuu aflagaadeeyaa, wuu ku xanaaqaa, marka ma fiicno, aadan looga fiican. wuxuu rabaa inuu dukaamadii kale iyo meelihii xiro si kiisa kaliya u shaqeeyo. marka waad aragteen siyaasiyiinta markii ururkiisa uu rabo inuu soo baxo wuxuu sameynaa ururadii kale iyo wixii ay wadeen ayuu dukun daakunka dhigaa si kiisa keli ah dadku u doortaan oo la yiraa kaasaa soo haray. waxaa ka mid ah oo sababta kalifa dadku inay dadka kala xantaan kaftanka iyo qofku inuu dadka kale inuu ka qosliyo ama la kaftamo ama cayaar. dadka qaara waxay sameynayaan si uu dadki kale ula kaftamo qof kale ayuu ceebtiisii sheegaa. kaba soo qada qof jiisa ayuu wax u soconaa sidiisii dadkii kale rabaa inuu u majaajileeyo ama uu ka qosliyo ama la kaftamo. sababo marka fara badan ayaa jira oo arrintan dadka ku kalifa. laakiin waxaa su-aal ah siduu qofku isaga ilaalin karaa cudurkan. carabku uu iska nuxnuxsanayo markuu wax maqlo sidee loo xakamay karaa oo fariin loogu yeeli karaa iyo qunful iyo fura. waxyaabaha ku saacidi kara qofka in uu arrintan iska ilaaliyo waxaa ka mid a inuu ogaado in uu xasanaadkiisii iyo ajarkii iyo wanaaggii iyo khayraadkii uu sameynayay uu ku bedelanayo xumaan qof kale oo uu ku gubayo. tusaale qofka sigaarka iyo caba maalkiisii ayuu dad u qabadsiiyey oo u gubaa. dabkii qayb ka midana hoos jirkiisuu gelinaa markaasuu ku baabi'ina. marka waa qof isagu xoolihiisii isku dilaya. marka qofka dadka xamara inuu fahmo aaday u caawine inuu yahay qof isagu xasanaadkiisii burburinayo oo dab qabadsiinayo. salaada markuu tukadaba dab qabadsiinayo. weliba wixii wanaaguu sameeyana uga tanaasulayo oo u dhaafayo qof cadowga asaga kasoo horjeeda. tusaale ahaan qofka markaad xamato aakhiro markii la tago qofki wuu dacwoona. waxaa loo gudbinaa liiska dadkii wax ka xaday iyo intii xamatay iyo intii dhibaato u geysatay oo dhan ayaa la fahamsiina. qofkii waa soo dacwoona xuley ilaahu hebela ama heblaaya ay xamatay intaas iga sheeg. goobta goob la inkari kara maahan, waa maqal iyo muuqaal. haddaad isku dayda inaad inkirto qofkii hadlaaya adigoo hadlaaya lagu keeni karaa oo xantii wada sida CCTV camerada. qofkii hadlaayo oo alaabtii wada iyo hortaada la keena wax la inkari kara ma. labaad marka mid sameynay ajarkii iyo xasanaadkii aada haysatay ayaa leeyahay magdhow sii. sababto qofkan waa dishay dhibaato xun iyo intaasoo daqaraad ka jeexday sii xolihiisii. mid alla midkii la xantay iyo midkii la caayay iyo midkii la xumeeyey iyo wax alla wixii dhib dad loo geystay midba wuxuu qaadanaa 200 ama 2,000. inta dadku safka qofkii ugu jiraan hadday dhammaato oo ajarkii dhammaado oo akawnkii waxba ku jirin oo u faaruqo dadkii waxaad siida mahedid oo magdhow ah. waxaa leeyahay culayska ayaa ka fududay. marka qofkii yaa leeyahay wuxuu ku siiyo ma uu haysto waxna waa kuu geystay
dembiyadaada intii aad ka rabtay oo kale tusaale ahaan u kiilay isaga waxaa wixii dembiyaha loo jamlayna. qof marka waxaa nabigu yiri isagoo arrintaas raba inuu dadka fahamsiiyo ayuu wuxuu yiri atadruuna maa lilmuflis, qofka shiiday oo musallafay oo maaragtay faqriyey oo maalkii ka dhammaaday ma taqanin waa la yaqaan, waa ninka waxba haysana le sidana u qor. nabigu kaas maahu yiri ummadayda muflis waxaa la yihaa qof cayrtoogay oo faqriyey oo maaragtay shirkadiisii iyo maal wixiisii kaceen. waxaa la yihaa qofka aakhira imaanaya isagoo salaad badan iyo soom badan iyo saka badan iyo khayr badan iyo maaragtay intaasoo sadaqa isagoo wata oo fara badan iyuu la imaana. markuu fiiriyo waxa uu wato qof ahlu jannahaba maaragtay iska noqona. laakiin markii arrinta la xisaabtamo ayaa waxaa kusoo baxaa qofkii intaasoo qofood safka usoo gelaya, midow caayay iyo midow ayaan dilay iyo midow xantay iyo midow mid ku diray iyo qoys oo kala cayriyey iyo dhibaato uu sameeyey, dadkii saf ku jira imaan. qof walba wixii looga jara intaas dhowr boqol sii heblaye, intaasoo boqol sii, intaas qof hebla sii. qofkii dhammaay oo hodanka ahaa oo tanaadka ahaa oo ajarka faraha badan la yimid meeshiiba ku faqrinaa. kadibna markii uu ka dhammaado khayrkii oo haddii xataa xoolihiisu dhammaadaan dadka dembigoodii kale isaga lagu raro ayaa naarta loo taxaaba. sidaas awgeed rag culamaa oo khatar ahay ahlu khayr ahay oo ku baraarugay arrintan falxumadeeda waxay yidhaahdeen, nin kamid ah wuxuu yidhi haddii aan qof xamanayo waxaan xamalaha hooyaday, sababtoo ah iyadaa u xaq leh oo mudan xasanaadka anuu aan samaystay. hataanba xoolahaygii iyo ajar salaadii aan u taagnaa iyo sadaqadii iyo soonkii iyo zakadii iyo wanaaggii intaas aan sameeyey hataa qof islaameed uga tanaasulayo oo iska siinayo axsan hooyadayaa mudan u yiri inaan ayada xanto hadhowbita xoolahayga ayada la siiyo. laakiin qof igama soo horjeedo tusaaleen cadow ah ama aanan waxba la rabin in hadhowta aakhiro wax aan salaadii aan usoo jeeday oo barafka u maray iyo wixii aan khayr aan tegay iyo intii aan soon qorax kulul iyo dhibaato aan ku soomi jiray wixii dhan qof meel cidlaa ka qaato, taas wallahi walla inaan ka aqbalin mana siisanaya taas. midda kale qofku inuu ogaado qof walba ceebuu leeyahay iyo iina fara badan oo haddii isagaba laga sheego ay u dhammaanaydo. marka inuu ku mashquulo qofka isagu tiisa in uu dar yeelo, inuu dibu habeyn ku sameeyo isaga naftiisa oo waxa ka qaldan isagu uu saxsado, uusan isku mashquulin dadka kale ceebahooda. haddaad ilmo islaameed wax ka sheegaydo adigu ilmad leed, haddaad qof kale wax ka sheegaydo maalkiisa adigu maalaad leed, haddaad qof kale sharaftiisa karaamadiisa wax ka sheegay adigu waad leed, inaad taada ku mashquusho. weliba uu qofku ogaado inay suurtagal tahay qofka kale ceebihiisa markuu sheego ilaahay inuu ku ebteleeyo in isaga ceebtaas ay ku dhacdo. soomaalidu waxay dhihi jireen waagii hore ninkii yiraa walaalkiisa ari nuug afkii uu ku yiri ayuu isagu ku nuugaa. waxay ka wadaan haddaad qofkan ceeb aad ku timbaraydo ilaahay wuxuu kugu qasbaa duruuf kallifta in wixii aad qofkan ka sheegayday in adiga kugu yimaadeen. sidaas ogeed culammadii hore nin kamid ah wuxuu yidhi nin sheekha oo caan ah oo maaragtay muslimiinta culammadooda ragga u waaweyn kamid a ayaa wuxuu yidhi dhowr nin ayay u tiriyaan laakiin ninka ugu cadcad arrintan laga sheegay waa ninka la yidhaha anas ibn malik imaamu daar ilhijra adraktu bihadihi albalda aqwaman lam yakun lahum cuyuub فعابوا الناس فصارت لهم عيوب وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. حجري مقالة المدينة وحكسوا قاري ضد عن عيب الهجر
laakiin dadka kale ayay waxay la daba taagneeyeen buraash nijaas ah. dadka kale iyo xumaan iyo tiimbara foorxuna la daba taagnaa jireen. markaasaa ilaahay iyagii wuxuu u sameeyey ceebo iyo in iyo foolxumo isaga astaan u noqoto oo aan ka harin ayaa ilaahay iyagii u sameeyey. waxaan kaloo kusoo gaaray yiri magaaladan joogi jiray dad ceeba lahaan jiray oo ama xabsi ka soo baxay ama ayaan ay maradu ka furatay ama foolxumo ku dhacday, laakiin dadka islaameed ceebahoodii ka aamuseen oo ilaahay amarkiis iyagana ceebtoodii la hilmaamay. oo qof hadda ka warqabta qofkan waa hebel inuu intaasoo foolxumo ku kacay aan la arkin, dadka maskaxdooda laga masaxay. waan soo kookooba waqtigii ayaa yar. waxyaabaha qofka ku dhiiri geli kara inuusan dadka xamal waxaa kamid a dadkii fiicnaa iyo ahlu khayrkii taariikh nololeedkoodii iyo siiradoodii inuu qofku akriyo. tusaale ahaan sidii ay naftooda ula dhaqmi jireen, sidii dadka kale ula dhaqmi jireen, dhaqankooda siduu ahaa inuu qofku akriyo si uu u ogaado sida munaasibka ah oo in loo dhaqmo ay tahay. tusaalayar haddaan soo qaadano waxaa jiray nin shaykha oo la yihaa cabdullaahi ibni wahab almasri, culammadii hore oo salafkuu ku jiray. ninkaas wuxuu yihi nadartu annii kulama اغtabtu insana an asuuma yowma faajhadanii fakuntu agtaabu waasuumu fanawaytu annii kulama اغtabtu insana annii atasadaq bidirham famin xubi الdaraahimi taraktu اlgiiba. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء هكذا الله كان العلماء وهذا هو ثمرة العلم النافع. nin la yihaa xarmala oo raggii culamada kamida wuxuu yihi waxaan maqlay cabdullaahi ibni wahab oo leh waxaan nadray oo aan shardiyey mar alla markaan qof xanto in aan hal maalin soomo si uu isaga celiyo inuu dad xanto ayuu naftiisa xakamayay. wuxuu yihi haddaan hal qof xanto waa inaan hal maalin soomo. arrintii ay dhibto yiri soonkan ku dhibtooday, xantiina waa iska socda, soonkiina waa indhibay, xantiina joogsanmay. markii dambe wuxuu yihi waxaan sameeyey waxaan niyeysto yiri oon go-aansaday qof markaan xantaba inaan hal shilin oo lacagtii waagaas ay isticmaali jireen inaan sadaqaysto 1 dirham. laakiin wuxuu yihi jacayl aan shilimaanta iyo lacagta u qabo awgeed waagaasaan iska joojiyo yiri inaan qof danba xanto, sababtoo jaabkii arrintu la dagaale. muxuu rabaa jaabkiisa iyo akownkiisa aakhiro intaysa arrintu la dagaalin jaabkiisaan hadda ayuu ku tijaabiyey. kan haddayba marka uu ka fakan waayey oo uu ku xoola beelaayo oo lacagtiisi halkan ku dhammaanayo halkaas uu isaga joojiyo. nin kale oo la yihaha abu caasim annabil albasri waa ninka la yihaha imaam albukhaari sheekhiisa الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل البصري شيخ البخاري وحجري ما اغتبت مسلما مذ علمت أن الله حرم الغيبة. حجري مرك أجهري أن أجادي إلهي إنه حرام كان يدخل إلا حمته ولي يقدم محمد. dadku ahle oo naftooda ka adag oo waxa ay rabaan iyo waxay san rabin kala yaqaanayaan. waxaa lamid ahaa imaam البخاري laftirkiisu wuxuu yihi arju an alqa allaha walaa yuxaasibunii an اغtabtu axada. waxaan rajaynaha yii inaa ilaahay la kulmo oo iyadoon la ii qabsanayn oon la igu dad aan xantay iyo dad aan maaragtay wax ka sheegay dembigooda iyadoon laygu maxkamadeyneyn ayaan waxaan rajaynaya inaa ilaahay la kulmo. ninkii shiikha ahaa oo yiri jacaylka lacagteeda u qabo awgeed ayaan xantii isaga daayey. markuu warkaas nin sheekhaha soo qaatay kitaabkiisa ku qoray xaafid dahabi la yihaah markaasuu yihi wallahi sidaasay culamadu weligood ahaayeen. cilmiga wax anfaca oo naafica waxgalmaadka iyo waxtarmada leh miraha u dhalaana waa sidaas in dadka islaameed faraha laga qaado. haddii ay dhacdo oo qofkii u dad xantay maxaa la gudboon
in uu qofku tooba keeno marka koowaad toobad keenka culimmada hadda marar badan faahfaahiday in uu wixii hore ka toobad keeno oo uu arrintaasna faraha ka qaado, dadkii uu dembiga ka galay hadday suurtagal tahana uu weydiisto inay ay cafiyaan. qofka maqla isaga maxaa la gudboon? kan maqla waxaa la gudboon in uu difaaco walaalkiisa muslimka ah oo miiska saaran, oo fargeetada iyo maaragtay midida loo soo qaatay oo saxanka la saartay oo la jarjaranayo, inuu difaaco oo u yiraahdo maaragtay u sheego inaysan suurtagal ahayn in sidaan qofka loo sii wado. marka hadda ma faahfaahin karno, laakiin waxaan rajaynayaa inay aada u caddahay. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa oo ilaahay ka baryaynaa isaga awooday biasmaa'i lxusnaa wasifaatihi alculaa an yudahira quluubana waalsinatana wasaa'ira jawaarixina وأن يتقبل أعمالنا بفضله وكرمه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء. إلهي سبحانه وتعالى وحنقبر ينا شيخ وميزانك حسناتك وسعره يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إننا ونقلب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.